بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دتك ميل والبوجوكتين وادين سلامة يعني والمش وجو إلهي نوع عافمات كسية ورجينا رحمة دي سنين مقنعين وحارب ما أنت إنا كهذلو عشر كان أو كسابسن دباتوين كدان يراد سو وجهه إنتو ده بدن ما هم كل لكن إنتو ده بدن دباتوين كسو وجهه مركي جامعة كبحان كدب قفكم كو جامعة كجرو سنوين وترسنا وقتها أصعده مالك مشغول سنة markoo jaamacada ka baxo kadib maxaa dhibaato oo soo wajaho waxa raba inaan ka hadlo dhibaatooyinka soo wajaho noocyada yihiin dhinacyada uga kala imaanayaan iyo dhibaatooyinka xigo ee u sababayaan marka koow ka bilaawno dhibaatooyinka soo wajahay dhalinyarada intooda badan marka jaamacada dhameeyaan mar waxay noqonayaan dhanka mujtamaca ka soo wajaha marna waxay noqonayaan dhanka nafsadooda ka wajaha marka ka bilaawno dhanka mujtamaca waxa laga yaabaa ardayga markoo jaamacada dhameeyo ama shahaadadiisa soo qaadanin in su'aalo qaar lagu bilaabo ama familka ha ka bilaabato ama mujtamaca intiisa kala asxaab daris whatever mid karta ha ahaato waxa laga yaabaa qofka ku su'aal in la weydiiyo ma shaqeysay shaqo ma qabataa ma shaqeysaa waxa kale laga yaabaa in la weydiiyo hay jaamacadu waa dhameysay ma guursatay su'aashaas kale inay u imaado labada su'aal oo qofkii dhaawac ku noqonaysa sababtoo ah gacantiisa ma ku haayo labadaba waxa laga yaabaa meesha horta runta jirtaa waxay tahay oo mujtamaceena wax yar naga qaldan su'aalaha qaar markii qofka la weydiinayo waxa fiican in adiga iska soo qaadid yani su'aashan hadii adiga lagu weydiiyo see noqon lahayd laba waxa kale iska soo qaadaysaa su'aashan hadii aad qofkan weydiisid yani jawaabta oo ku siinayo jawaab gacantiisa ku jirta miya marka waxay noqonay mujtamaci marka koo su'aal ahaan loo weydiiyo oo dhaho ma shaqeysay ma guursatay ma shaqeysay ma guursatay ka bacdi in lagu eedeeyo hay jaamacad waa ka baxday heblaay maxaa dhacay wali ma shaqeyn miya markalna in la dhaho hay jaamacad waa ka baxday maxaa dhacay wali ma guursan miya faca way guursadeen labada su'aala mujtamaca ugu iimaanayso qofka horta markoo jaamacada ka baxayay shahaada la soo siiyay waxa la soo siinay shahaado ahayd laakiin shahaado iyo shaqo iyo nin ama naag ma la soo siinin yani ma ahan in qofkan oo jaamacada 4 sano ama 5 sano u soo baranayay in la siiyay amal yani qofka guursan lahayn hore loo soo siinay si shahaadada amal meesha ka shaqeyn lahayn hore loo soo siinay si shahaadada amal ma ahan qofkan cilmiyo wata cilmiyo soo qaaday marka dibka ugu badan mujtamaca ka imaanayo waa mido marka koo su'aal kugu soo galayaan marka kalena eeda lagu saara faaway guursadeen ma guursatid saacadan ilma dhali lahayd waxa soo baratay maxaa ka faa'iiday mas'uuliyadaada ma qaado sidmiya qofa iska ka salaamay wuxuu ku dhahay saataan fiicantahay afay laba sano goor ma jaamacad dhameysay wali ma shaqaysid miya marka iyadan waxay noqonayaan dhibaatooyinka oo uga imaada dhanka mujtamaca midda kale labaad aan rabo inaan sheego waxay tahay dhibaatooyinka dhanka nafsada uga imaanayo horta laba waxa rabaa inaan idin sheego ardaydeedii inta badan horta ina wax qabsatid yani wax yeelatid oo qof wax qabsaday ahaatid waqti ma ku xirno daana ma ku xirno maanta ma ahan in isdhahdid wixii hadda qabsan weysid bari ma qabsanee wax qabsiga daada ma ku xirno cilmiga adiga wadatid adiga iska leh nasiibka iyo waqtigana ilaahay dhankiisa ka go'an hadii laakiin adiga isku saartid bareeshar maanta hadaa wax qabsan weysay beritool ma wax qabsanee ama waqtiga socoshadiisa iyo saacadaha si isku daba yaalaan aad daba raacdid dhibaato weyn ay noqonaysaa yani hadii lacala laga yaabo inaa qof hore u soo shaqeyn jiray amal aad tahay ama part time shaqeyn jiray intoo jaamacada dhiganayay markii oo jaamacada ka baxayna shaqooyinkii oo waayay ma ahan macnaha inaa nafsada ku eedid hadhowtii marka hore waxa qabsan jiray hadeertaan maxaa u qabsan lahay yeesan ku saameyn hadalada bi'ada ka imaanayo ama mujtamaca ka imaanayo oo waxa maxaa u qabsan weysay iyo maxaa u guursan weysay daa ku socoto daadan xisaabaadkeeda iyo u kala socoto anaga shaqo ma kulihin ilaaha iskale marka hayeesan ka dhaadhicin waxaan daa kugu socotay maxaa u sameyn weysay ama waxaan waa sameyn jirtay hadeertaan maxaa u sameyn laadahay waxyaabo iska normal ah jiro qofka ardayga ee markoo jaamacada xilligood dhiganayo wuxuu ku tashanaa yani target oo leeyahay semester kana ka baxay semester kala galay midka ku xiga galay sanadkaana ka baxay jaamacada assignment yaa lagu soo diray imtixaana leedahay taas oo qofka u keenayso ardayga u keenayso automatically maskaxdiisa dhan inay mashquulsan tahay laba problem kale dabiiciga oo jiro waxay tahay waxa ka dhaadhacsan qalbi ahaan jaamacadan sababtoo u dhigana inay tahay inuu bari heer gaaro
marka su'aasha imaanaysa waxa waaye jaamacada markii lagu dhameeyo oo qofkan ardayga oo jaamacada dhameey ama adiga marka jaamacada dhameysay laba waxa jidka ka baxay yani midna way kugu soo furmay midna maskaxdaada way ka baxay maskaxdaada waxa ka baxay bareesharkii waxyaabii ay ku mashquulsaneed oo ahaay barashadii iyo imtixaanaadkii iyo diyaar garowgii waxa kale oo ku soo wajahayo hamigi aa lahayd oo ahaay inaad wax qabsatid oo meel gaartid inuu meel blank taagan yahay meel ever ina soo istaagtay waxa dartaan dhahta taagis oo fiirnaysid so maskaxdina waxay ku mashquulsha malahan banaankina waa soo istaagtay hamigi malahan mujtamaci way ku daba taagan yihiin da iyo waxa lagu xisaabinaa iyo waxyaabo adag gacantaada ku jirin laakiin mid aan sheegaya waxyaabaha qaar normal waay waxyaabaha qaar nolosha way ka dhacaan normal waay sugitaan wax la dhahayaa jiro you have to wait in wax la sugo nolosha qaabka Ilaahay u sameeyay waay wax degdeg ma jiro hadee degdeg imaado waxa ku raacayo negativity badan maskaxdaada waxay u fakarey negative badan kalsoonida aan nolosha ku qabtay hoos u dhacayo iimaana leenahay laakiin saasay tahay waxa jirto waxyaabo badan oo qofka bini aadanka u keenayo negative inuu ku fikiro negative kaas oo ku fikiraayane waxa aaniga rabo inaan la dagaalamo waxay tahay dhanka nafsadiina dhibka idinkaga imaanayo haddii dhanka nafsadiina dhibka idinkaga imaanayo xakamaysiin dhanka mujtamaca jawaab fiican u helaysiin waa ogahay qof jecel ma jiro inta 4 sano wax soo bartay ama 5 sano wax soo bartay inuu guri fadhiyo waa dareemi kara xanuunka leedahay waa dareemi kara murugada iyo walwalkii waxyaabaha ku dhalanay laakiin saasay tahay waqti yar oo sugitaan u baahan ma rabi inay ka gasho qalqal noloshaada si raaci doono يعني مروو أما وسواس أما والول أما اليجب إني كارعضو سويتان ير وقت ير أسويسي يعني وقت يمدي كري إنتاسي لكن وحاه هدان يدق شتت وحان وقت ير إني يهين وأكو جولي سنة ست وجارسة يعني إنا شقيست إنا رير يلتيد لولا أسباب مكحرنا جامعة يريد إذا مركب بناك وجسوا استكتت نلاش الرسمي جاي وحب لعبنا يسا مرك جامعة دلنا نميو حتى waxa laga yaabaa dadka garab ku siin jir inay ku dhahan hay jaamacad waa ka bixiyay macalaam dhibaatooyinka mujtamaca say naftirkiisa ka imaanayo marka waxa waaye jamaaca waxa rabaa in hadda dhowr mar idinku celceliyo nolosha lagu sheegayo ama mas'uuliyadda lagu sheegayo ama adkeysiga lagu sheegayo waxa iimaanay jaamacadda banaankeeda ma aha jaamacadda gudaheeda jaamacadda banaankeeda waa wax dagaalka rasmiga u baahan sabarka u baahan guul iyo guul darro ee ku xeesan tahay laakiin sideedaba ani waxa aaminsanahay intooba qof sabraayo oo nolosha la dagaalayo guul darro wax la dhahay ma jiro hadayna waa idin soo sheeg wax da ku xiran ma jirto maanta hada 4 sano banaanka taagneed ama 5 sano banaanka taagneed ama 1 sano banaanka taagneed ama bilooyin banaanka taagneed wixii ay qabsan lahayd waa qabsanay kartideedu waa leedahay qof jaamacad soo dhamay inuu karti leeyahay horta laba qof is weydiinayso buuga soo qortay waxa soo qabatay waxa soo xifdisay yani waxa taagan tahay maajur fiican maskaxdaadi way bislaatay meel fiican ay taagan tahay dib ah u celini inta saacadan fakir isku dhalisid oo gadaal ah u fikirtid oo raacdid mujtamacan wuxuu dhahayo ya gadaal yani maskaxdi fiicneed oo wax soo qabatay liidnimaha tusanin dhanka qaas hadii si loo fiiriyo gabdhihiga si qaas ula hadlaaya oo micnihayga ka wado yani jaamacad naageed jika ka dambeys iyo waxaas iyo niyada iyada naftirkeeda ha gelinin jaamacadaas oo dhameysay maxaa u guursan weysay iyada naftirkeeda niyada ha gelinin horta waxa waaye ani mid waxa aaminsanahay hadaa maanta jaamacad ka baxday oo jikana galaysid you are perfect qofka fiican ba malahan adoo jika galaysid jaamacad soo dhameysay ilmahaaga korsanaysid waxyaabo qaar iigo faan hadii ceeb laga dhigo ceebay noqonayaan wixii ceeb ahna hadii lagu faano wax lagu faanay noqonayaan laakiin reality-ga waxay tahay in karti aan leedahay jaamacadaas ka baxday kartida aan uga baxday waa leedahay wali mujtamaca wax ma ka qaban kartid laakiin waxa wax ka qaban kartaa nafsadaada you have to know nolosha rasmiga hadda bilowday dagaal ku jirta wali waa neefsanoosaa lixdaad alxamdulillah waa qabtaa ilaahaygu ku abuuray wuu kula jiraa ilaahay horta ma la dhihin oo samiic basiir waay inuu ku jeedo niyada gali waqtigaaga waa gaaray aniga waxa diidana waxay tahay intii waqtiga shaqada aad ka gaaraysid ha u baabi'in ama dib ha u dhigin xanuuna nafsi waxa rajaynayaa inaa ifaanteen wax una iga faanteen waxa yani wax fariinta ugu dambaysa dad gaarsiina waxay tahay su'aashan hal la dhaafo oo jaamacad waa dhameysay ma guursatay
ma shaqaysaa. Assalaamu calaykum.